masjidka Nuurul Islaam oo ka mid ah masaajidda ku yaala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxaa meeshii ugu dambeysay maraya dhismo muddo badan soo socday oo lagu dhisayay masjidkaasi waxaana hadda bilow ah qaybtii sare ee ugu dambeysay masjidka. Aniga iyo qaar ka mid ah shaqaalaha TV-ga Banaadir oo booqanay masjidka ayaa waxaa halkaasi kula kulanay qaar ka mid ah maamulka iyo howlwadeenada masjidka. Sidoo kale waxay isla madasha ku gudoomeen lacag uga timid walaalo Soomaaliyeed oo masjidka lagu dabarucayay isla markaasina ay ku soo darsadeen. Waa kuwan qaar ka mid ah maamulka iyo howlwadeenada oo codsiyo kala duwan u diraya dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee jooga dalka dibadiisa iyo gudahiisa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Walaalaha muslimiinta ah oo dal iyo dibad jooga waxaan gaarsiinaynaa masjidka Nuurul Islaam oo ku yaala degmada Xamar Jajab gaar ahaan waaxda General Daawud wuxuu ku yaalaa General Daawud. Marka insha Allah ta'ala TV-gan oo Banaadir qeyr Allah siiyo dhalinyaradeeda ee maamulkeeda waxay nagu saacideen in masjidka Nuurul Islaam aan ka faafino TV-goodi Banaadir qayb weyn ayay ka qaateen insha Allah ta'ala qeyr Allah siiyo in aan muslimiinta meel kasto ay joogaan adduunka iyo magaalada Muqdisho inay naga gaarsiiyaan insha Allah ta'ala. Marka qeyr Allah siiyo maamulka TV-ga Banaadir waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala inay noo gudbiyaan warbixinta hadeertaan aan warbixinayno oo masjidku u baahan yahay baahida maanta uu qabo ay tahay shamaandadii iyo caradii iyo bulkeetiga iyo dabaqa saddexaad ayaan aan dhisaynaa insha Allah ta'ala. marka waxaan war aan soo gudbinay aan wadnay oo haddana waliba warka socda beedkani maadaama daseeqafka kor laga qaaday in geesaar laga dhigo maga qarashaad fara badan uu u baahan yahay. marka hadda alxamdulillah dhowr hadda alaab waa la helay sidii shamiinto kale wax baa waliba si maqan baahida. marka hadda baahidii dhinacyo fara badan ay ka timid hadda waxa la taagan yahay in loo baahdo shamiinto iyo dhagaxaan iyo dadkii shaqaalaha shaqeynayay lacag bay u baahan yihiin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan joognaa masjid Nuurul Islaam ku yaala degmada Xamar Jajab. sad arkaysaan dhismaha ka socda masjidka Nuurul Islaam. ma sha Allah tabarakallah qadimiintii culimadii waa kuwa wada dhanyihiin ma sha Allah. TV-ga Banaadir aad iyo aad asagana wuxuu nagu saacideeyay aad iyo aad ma sha Allah garab weyn uu ka qaatay TV Banaadir ما شاء الله $50 waxaa jirto maamo joogto dalka Mareykanka oo soo talgashay masjidka ilaahay dooraal oo ka noqdo insha Allah qaadimka mishaad shacab qaadir aan ku wareejin doona insha Allah ta'ala.